waxaan maanta halkan kusoo bandhigayaa qaabka loo sameeyo calculatorka. Si aad calculator u samayso waxaad isticmaali kartaa luqado fara badan, laakiin anagu waxaan hadda isticmaalnaa luqadda loo yaqaano C# oo lagu sameynayo Visual Studio ka tirsan wax soo saarka shirkadda Microsoft. Marka ugu horreyn si aad calculator u samayso, marka hore waxaad u baahan tahay inaad computerkaaga ku dejiso programka loo yaqaano Visual Studio, kadibna waa inaad ku duubto. Intaa kadib waxaad soo kicin doontaa projectkaagii, waxaad oran doontaa click, kadib marka saa kugu soo kaco waxaad dooran doontaa new project. haddii kale waxaad tegi kartaa file, kadib waxaad ku dhufan kartaa new, then waxaad dooran kartaa project. qaabka saddexaad aad u furi kartaa waa inaad taabato Control Shift iyo N. saddexdaa hab oo wada mari kartaa. Marka habka ugu fudud ama shortcut-ka ah waxaad ku dhufanaysaa new project. markaad intaa ku dhufato kadib wuxuu ku weydiinayaa maxaad doonaysaa inaad samayso. halka waxaa ku yaala luqado fara badan, waxaad dooranaysaa markaa C#, kadibna waxaad ka dooran doontaa Windowska. markaa halka waad arkaysaa wax badan baa ku yaala, console-kii baa jira, kalaasyadii wixii oo dhan lagu sameynaya jira. ka u sarreeyo oo ah iminka Windows Formkii, waynu doonno form application iska dooran, kadibna projectkaaga ayaad magac bixin doontaa. waxaan odhan doonaa kana waxaan u bixin doonaa training calculator, kadibna waxaan odhan doonaa okay. intaa kadib waxay noo furmi doonaa formkii. kadib markuu saa formku inoogu furmo, calculatorku qiyaastaad adigu doontaad ka dhiganaysaa. marka tusaale ahaan intan haddaynu ka soo qaadno projectkaaga, markaanta ka soo qaato right click baad siin, kadibna properties baad oran, sanoo kale kuugu furmi, kadibna formka halkaa magaciisa ayaad bedeli, waxaad u bixin doontaa calculator textka dooran, kadibna halkaas calculator bay isku kaa bedeli. intaa kadib waxaynu dooranahay start positionka calculatorka halku ka soo kacaya, ma wuxuu kasoo kacayaa Windows halku doono kaga soo kacaya, ma centerku ka soo kacaya, samaana wali adaa u geegeysan halkaad doonayso. marka inagu tusaale waxaynu odhan doonaa centerka ku soo kaco. intaa markaynu samayno walaynu tijaabinaa haddaba halku ku soo kaco. okay. hadda saad arkaysa waxaynu samayno form keliya calculatorkeena arrintaasoo leekaan doonaa. hadda waxaynu samayn doonaa batanadii. si batanka aad u samayso waxaad tegi doontaa halkay ku taalo toolboxka oo ka mid ah isagu sidebar menu-ga. toolboxka markaad click siiso laba option baad haysataa, inaad markaad ka dhaqaaqdo uu isxidho, iyo in isaga oo uu formka kuu muuqdo uu toolboxkana kuu muuqdo. waxaad dooran doontaa batankan yar oo la yidhaahdo auto hide. click haddaad siiso markaa labada saas isku kaag furmeen. marka halka waxaad ku qori doontaa button, ama sidoo kale liiska ayaad ka baari kartaa. waa halkan ugu horeeya, deedna kadibna click adigoo drop and drag baad samayn. intaa kadib sizekiisa halkan kasoo hagaajin doonaa. xaggan aad tegi, halka waxa ku qoran size, kadibna waxaan ka dhigan doonaa 50/50, dhinac walba konton uga dhig. intaa markaynu samaynay kadib buttonka waxbaa ku dhex qoran oo magac baa ku qoran, button 1 baa ku qoran. marka waan ka saariyo halkan 1 qorayno o dhan waad arkaysaa. deedna waxaan leenahay copy, kadibna saasaynu u dhigan doonaa 4 line. saasi lamida dhammaan intaynu wada koobiyeyno aynu haddana mar labaad halkan dhigan, intaa leegban mar saddexaadna dhigan, mar afraadna waynu dhigan doonaa. okay. waxaanu batanaa uma baahnin, intii aynu u baahanay baynu la soo hari doonaa. tusaale ahaan ugeeda iyo ka jarta iyo waxaasoo dhan, iyo intaas baynu la soo haray aynu u baahannahay. okay. haddaba sidaynu naqaano calculatoradu inta badan xaggan hoose ayay ka bilaabmaan. number 1 waxaynu sidoo kale aynu sizekiisa ayaynu sizekiisa kordhin karnaa. dhammaantood intaynu mar wada highlight karno ayaynu kordhsan karnaa. haddaynu doonno mid baynu kordhin karnaa. marka sidee baynu haddaba highlight karinaa? waan dhammaantood highlight bay saarnaa. halkan font baa ku qoran, fontka haddaynu kala bixinno waad arkaysaa wuu inoo kala baxayaa. deedna waxaynu dooranaa farta noocaynu ka dhiganaynaa. farta inagu tanaynu ku daysanaynaa, laakiin sizeka ayuumaynu xoogay kor qaadaynaa. masalan 14 haddaynu ka dhigno waxaan leenahay labadii ka arkaya nambaradii saasay inoogu muuqdeen. sidaas si lamid ah ayaynu qaybtan intaynu yaraha highlight saareen in yar ballaarsan, kadibna iyagana waxaan ka dhigi doonaa kaa ugu sarreeyo kale. tusaale ahaan inaynu ka dhiganno u qaybidii. muuqaalka calculatorkeenu ugu dhamaystiray waxbaa inaga maqan. wax maqan halkii xisaabta lagu soo bandhigi lahaa. waxaynu soo qaadanaynaa Xbox.
halka haddaad text ku qorto markaa text boxku ku imanaya haddii kalena liiskaad ka dhex baadhaysaa kadibna text boxkaaga waad jiidi sizeska inta doonaysaad ka dhigan halka haddaad tagtoo tiraahdo multiline wax ku siinaya optionkaa yar haddii kalena sizeska halkan aad kasoo weynaysan kartaa labada option baad haysataa okay kan waxaynu magacaynu kasoo bedeli doonaa halku hadda text boxka yahay waxaan odhan doonaa waxaan u bixin doonaa tusaalahaan txt result kuwan kalena batamada haddaynu sidooda ku dayno iyo haddaynu mid walba magac u bixino aynu nidhaahno tusaalahaan button 1 kan kalena aynu nidhaahno button 2 button 3 ilaa intay dhammaanayaan ayaynu ka dhigan karnaa insha allah saasay markaa ayaynu iyagana ku wadi doonaa ee aynu button 9 dhammayno hal option oo kale aynu u baahanaa waxaan doonaynaa kaa ka dhigisagana button 9 button 9 buttonka ugu horeeya ayaynu markaa click siinanaa kana indhahanaba ka soo qaad isagana button 0 haddaba buttonadan oo dhan waxaynu doonaynaa inaynu ka dhexaysano hal function si aynu uga dhexaysano taa marka hore number 1 kaynu click siin kadibna waxaynu tegi doonaa propertieskiisa si aad properties u tagto haddaan halkan kaaga muuqano tusaalahaan ay outhide-ku kaaga qarsoon yahay right click sii properties ku dhufo haddaad doonto outhide-ka waad qabsan kartaa haddaad doontana waad ka tegi kartaa kadibna waxaad dooranaysaa kaloo yaqaana eventiga markaan doorano waxaynu tegaynaa clicka waxaynu ku qoranaa waxaynu doonaa tusaalahaan waxaynu ku qoranaa button click kadib markaynu intaan nidhaahno waynu koobiyeysanaa button click deedna waxaan leenahay double click laba option baynu haysanaa inaynu markaa halkan double click soo siino iyo inaynu button click soo siino si haddaba dhammaantood ay isku wada function u noqdaan option labaad baynu haysanaa oo aynaynu dhammaantood wada siino mar qura wada highlight garayno kadibna aynu eventigi intaynu tagno halkan magacii koobi ku nidhaahno deedna intersaan ku siino kadib mid kastaynu ku dhufanaa waxayna geenayaa functionka hal mid baa markaa ka wada dhaxaynaya hadda waxay ka bilaaba markaa waxaynu bilaabi doonaa codingkii kaana insha allah waxaynu ku qori doonaa isagana buttonkana waxaynu u bixin doonaa magaciisa waxaynu u bixin doonaa isagana waxaynu u bixin doonaa button equal ba ka soo qaad ama equal dheh okay intaa markii saa inoogu dhammaatay ka hor intaynaan wax kala samaynin waxaynu marka hore declare garayn doonaa functionada waxa lagu declare gareeyaa classka dhexdiisa classka public ah si uu dhammaantood uga wada shaqeeyo haddii aynu private nidhaahnana wuxuu ka dhex shaqaynayaa within function kaasoo keliya marka tusaalahaan waxaan kasoo qaadaynaa double dabadeedna waxaan leenahay tusaalahaan function waxaan u bixin doonaa value name kaasaynu samaysan waxaan leenahay result value deedna qiimahaynu siinayna wuxuu noqon doonaa 0 kadibna inter baynu siin kadib waxaan odhan doonaa bool oo ah isaguna aynu siin doonaa isagana waxaan leenahay is operation performed waxaynu doonaynu u bixin karnaa is operation performed isagana equal leenahay false inter baynu siin kadib waxaan qori doonaa string isagana waxaan la soo bixi doonaa ku loo yaqaano operation performed isagana waxaan leenahay equal empty value baynu siin intaa markaynu saddexdaa function yaryar soo declare garaysano waxaynu imanaa halka buttonka waxaan leenahay if haddaba waa haddii waxaan leenahay text box result dot text uu kula mid yahay qiimaha 0 uu kuu sito amaba halkaasayna dargelinayna calaamadda waxa loo yaqaana or amaba ayaynu leenahay function kiraa markii aynu soo samaynay is operation performed ama uu kani operation performed kaagaasi amaba aynu idhaahno operation performed kadibna waynu xidhaynaa intaa markaynu sidaa ku xidhno waxaynu leenahay haddana inter hadda waxaynu leenahay txt result dot clear intaa markaynu saa u samayno inter baynu leenahay waxaynu soo qaadanaa is operation performed ayaynu leenahay equal false
kadibna ka degina halka ku dhex xirana button ila button waa function leedahay ka soo qaadan salaam button leedahay leenahay button kadib waxaan leenahay button then leenahay center order weeyaan button kan kadib waxaan leenahay haddaba haddii uu button kaas waa ka yar soo declare karnaa the text haddii uu point ku jiro kadib waxaan leedahay if waxaan leedahay haddii aanu ahayn text box result kaagu aanu ku jirin marka waxay baan ku jirin kanaynu sheegaynaa labadan dhibicdan yar haddaan period ka yar haddii aanu ku jirin kadib waxaan leenahay text result oo shaashada ku soo bandhignay equal text result the text waxaad u geynaysaa buttonkaygii the text intaa markaynu idhaahno kadib halkaasaynu tegin xaleen else and text result text equal text result the text plus buttonkeeni the text intaa markaynu markaa haddaba functionkeeni saa ku dhamaysto halka asaan bay naga saaray sababta u saaray waxa weeyaan halkan ka horeysa ayaa wuxuu doonaya in la yiraahdo text result dot text dot ka qaade dot contains and leenahay okay dot contains and leenahay okay saasu nagu saxiisaba inta markaynu haddaba samayno dariiqa labaad ee aynu qaadayna waxa weeyaan inaynu soo samayno haddana wixii loo yaqaanay operatorsku iyaguna waxa weeyaan waa kuwii shaqada qabanayay hadday isku dhufashadii tahay hadday isku geyntii tahay hadday isku qaybintii tahay iyo hadday tahay ka jarista intaba marka sidoo kale mid kamid ah ayaynu iyagana click siinaynaa aan tegaynaa eventiga oo aynu kasii tegaynaa isaga propertieska kadib waxaan tegaynaa halka kan ay ku qoran tahay click sorry waxaan ku qoranaa isagana operator bin salaam leenahay operator click isagana waxaan leenahay copy kadibna double click adarkaysa inuu inoo sameeyo saas la mid ah kana wada kaad ku dhufataa kan ku keenaya halkan iyadana waxaan ku sameyn doonaa haddaba shaqo waxaan leenahay iyadana button waxaan u bixin doonaa button baan odhan doonaa waxaan leenahay button kadib waxaan leenahay center sidii hore kale inta waxaan leenahay salaam level baan leenahay level 1 baan leenahay halka markaan level 1 text kadib waxaan leenahay ku dhamid yahay result value-ga oo loo geeyay halkan double quote baan markaa leenahay waa empty oo loo geeyay baan leenahay marka ka space baan baxnaa oo loo geeyay baan leenahay is else iyadana process ka furnaa kadib waxaan leenahay operation performed equal button keeni rabta text enter baan leenahay kadib waxaan leenahay result value equal double baan leenahay dot pass kadib waxaan ku qoraynaa halkan text result dot text kadib waxaan soo celinaynaa haddana levelkii leenahay level 1 dot text equal result value plus waxaan leenahay plus operation performed enter baan leenahay is operator performed equal true intaas markaa qaybtaana u soo dhamaystirana intaa kadib waxaan haddaba sameynaynaa bottomkii aynu resultiga ku dhex qoraynay aan double click siinaynaa dadna waxaan leenahay bottom equalkan haddaba waxaan qabanay switch wax la yidhahdo isticmaalnaa kadib waxaan leenahay switch
waxaan leenahay operation performed na interval sina prices baan furana cash baan sameynaa waxaan leenahay plus waa haddii uu plus yahay marka calaamadda la qabanaya haddii uu plus yahay double dot baad dhigaysaa waxaad leedahay markaa txt result dot text equal result value plus double dot pairs kadibna waxaad leedahay txt result dot text kadibna halkaasaynu ku qoraynaa to string waxaan leenahay break halkaa ku jooji kiiskii labaad haddana soo qaadana intan in leeg ayuu iyaduna qorna marka waxaanu samayn karraa inaynu gebigeedaba intan u biisano idnaynu mar labaad markan interninano intaa in leegu maynu haddana mar kaloo afaraadna samaysanaynaa deetana waxaanu ka dhiganaynaa calaamadan percentage-ka oo hadda aynu isticmaalayno inay tahay divide by soo kale waxaanu samayn karraa haddaynu doono calaamadan ayaynu isticmaali karraa halkan aynu ka bedeli karraa oo halkan aynu leenahay waa percentage waxaanu ku bedelan karraa calaamadeennan divide by okay markaan haddaba intaa dhammayno ee aynu break nidhaahno hal shay baynu samaynaynaa inaan ka bixin halkaasaa tegi inter baad siin deetana waxaad leedahay result value la mid yahay double dot pairs waxaad leedahay txt result dot text kadibna waxaan leenahay level 1 text equal empty intaa markaynu hadda samaynay waxaynu toos u aadaynaa projectgeeni halkan waxaynu kusoo dari doonaa laba batan oo aynu clear aynu ka kala dhigan doono labadaa batan waxaynu midna ka dhigi c midna c baynu ka dhigi karaa halkaynu tegi doonaa soo qaadan doonaa batan dan halkaynu dhigi kana ear baynu kor u qaadi kana ear baynu san odhan kadibna ear baynu saa odhan ka haddaynu c ka dhigano isaga mid leeg inaynu koobiyeysanno in halkan dhigano labadaa batan iyo inteenna markaynu haddaba saan idhaahno hal shay baynu u baahanay halkan iyadana waxaynu resultiga si ay u muuqato fartaynu weynaysan bool baynu odhan 16 baynu ka dhigi halkaa waxaynu ku qori markaa waad aragteen calculator boor walba wuxuu taagan yahay 0 si markaa aynu haddaba halkaa 0 halkaa waxaynu tegi doonaa textigiisii halkan baynu leenahay 0 kadibna halkan kusoo muuqanay wuxuu tegey dhinacaa iyo dhinaca wuxuu tegey bidixda halkaa ayaynu dooranaa dan waxaan leenahay red calculatoradu dhinaca midigta ayuu tagaa okay markaynu sidaa intaa aynu samayno xaggan yar baynu soo yarayn suu calculatorkeenu yar qurxaysto xaggana yar baynu kusoo dhowey okay hadda labadan batan midna maynaan ku samaynin wax shaqaa markaa tusaale ahaan batankan baynu dooranaynaa ce-ga ay ku taalo dan waxaanu siin doonaa double click markaynu batankaa double click siina waxaan leenahay txt result dot text equal 0 sidoo kalena waxaanu dooran doonaa kan kale ay ku taalo isagana waxaa la yidhahdaa sida waa kan isagana waxaynu daba ku qori doonaa tag dot text equal 0 kadib waxaan oran doonaa result value equal 0 dhamayno ka hor intaynaan raangaraynin waxaynu jeegarayn doonaa shaqadeeni operatorskii halka waxaynu nidhi kan koowaad minus halkaa waynu nidhaahno minus kan labaad waxaynu odhan doonaa times kan saddexaad waxaynu odhan doonaa divide by isagana odhan doonaa intaa markaynu samayno kadib
aynu functionkeeni aynu saa u wada hubino saa u dhamaysano kadib waan run garayn doonaa waxaan leenahay start okay san inoogu soo baxay kadib waxaan leenahay tusaale ahaan 74 waxaad u geysaa 5 79 صح okay waxaad samaysaa tusaale 14 waxaad ka jartaa 5 9 iyana waa sax haddaba isku qaybidayno eegno 16 divided by 4 iyana waxay soo baxday 4 aynu mar labaad ku celinataa bal 81 divided by 3 waxay soo baxday 27 point ma qaadanaya haa dabcan 51 divided by 3 haddaynu nidhaahno 25.5 iyana way shaqaynaysaa intaa kadib waxaanu samayn doonaa insha allahu inaynu soo gelino loogadii arayda calculatorka halkaa isla markaana aynu publish garayno kadibna aynu ku shubno computerkeena insha allahu iyadana waxaad kula socon doontaan casharka dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu